kulanti waxa wanaagsan ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dawladda Soomaaliya oo qabanqaabadii ugu xooganayd ugu jirta maalmaha xorriyadda madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo maanta la filaya inay ku kulmaan magaalada Gaalkacyo dawladda Soomaaliya oo dawladda Masar kala safatay dalka Itoobiya khilaafkii ba'an oo u dhaxeeya golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dalka Kosovo oo lagu soo rogay oo dacwad lagu soo ogay waa 25ka bisha June sanadka 2020 daawadayaal intaas waxay qodobadii ugu doorka roona haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan aan ku bilaabanay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay qabanqaabo xoogan ugu jirta maalmaha xorriyadda wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay maalmaha xorriyadda siin doonaan ahmiyad wasiir Maareeyo ayaa waxa uu sheegay in maalintaasi ay weynayaan shacabka Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay xorriyadda ka qaateen gumaysigii Ingiriiska gobolada waqooyi ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo ayaa waxa intaas uu ku daray in wadooyinka Muqdisho laga yaabo in la xidho waxa uu intaas ku daray in shacabka Soomaaliyeed ay u dulqaataan Maareeyo ayaa waxa uu sidoo kale intaas ku daray in waa Somaliland iyo Soomaaliya iyo waliba Djibouti ay xornimada qaateen maalmo isxiga waa gobolada waqooyi ee koonfureed iyo waliba dalka Djibouti oo uu sheegay inay mudan tahay inay maalmahaasi si weyn loo xuso Maareeyo oo gudoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda ayaa waxa ummadda Soomaaliyeed ku codsaday in ay maalmahaasi u dabaaldegaan madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa maanta la filayaa inay ku kulmaan magaalada Gaalkacyo Siciid Cabdilaahi Dani iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa la filayaa maanta inay ku kulmaan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug gali ka dambe halkaas oo ay ka soconayso qabanqaabo lagu soo dhaweynayo labada madaxweyne waxaa la sheegayaa inay ka wada hadli doonaan dhinaca iskaashiga ammaanka dhaqaalaha iyo waliba isu socodka waa shacabka Galmudug iyo Puntland waxaana noqonaysaa markii ugu horeeyay ay kulmaan labada madaxweyne tan iyo markii la doortay labadaasi madaxweyne oo iyagu haatan ku cusub madaxweynayaasha maamuladan oo darisa ayaa waxay hadda iska kaashanayaan magaalada Gaalkacyo ammaankeeda kuwaas oo ciidamo gaar ah ay u sameeyeen ammaankana ay sugayaan waxaana xusidman in wadooyin hore ay ugu dagaalameen ciidamada Puntland iyo Galmudug hadda dib loo furay dawladda Soomaaliya ayaa waxay dawladda Masar kala safatay dawladda dalka Itoobiya dawladda Soomaaliya ayaa si cad u sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay ama ay kala safatay xilli dalka jaamacadda Carabtu ay ku kulmeen magaalada Qaahira halkaas oo ay isku raaceen in ay dawladda Masar garab istaagaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu sheegay inay ka qaateen door dhexdhexaadnimo sida uu sheegay wasiir Cawad oo la hadlayay warbaahinta waxaana xusidman in dawladda Soomaaliya ay soo raaceen dawladda Qatar iyo Djibouti oo iyana sidaas oo kale ku dhawaaqay waxa wax laga xumaada ku tilmaamay dawladaha Carabta in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Qatar ay sidaas yeelaan khilaafkii ugu xoogana ayaa waxa uu ka dhex taagan yahay guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo waliba xubnaha kale oo ka tirsan aqalka sare ayaa waxa u dhaxeeya khilaafkii ugu xoogana abid ee soo kala dhaxgala waxa uu sheegay Cabdi Xaashi in warqadahaasi baarlamaanka Soomaaliya ay hormariyeen ama mooshinka la horgeeyay in wax badan laga bedelay kaasna uu sahayn kii saxda ah ee hore u gudbiyay Cabdi Xaashi ayaa waxa uu intaasi ku daray in sharciga loo hoggaansamo walow xildhibaano badan oo senator badan ay ka soo horjeedaan Senator Cabdi Xaashi Cabdulaahi waxaana
la filayaa in go-aan laga gaaro aakhiritaanka khilaafka u dhexeeya. Qodobada caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Kosovo Hashim Taski ayaa waxaa lasoo taagi doonaa maxkamad sida ay ku dhawaaqday maxkamadda ICJ International Criminal Court ayaa waxaa fadhigeedu yahay magaalada Hague ee Netherland. Ayaa waxaa la sheegayaa in madaxweynahaasi lagu soo oogay dacwad iyo 9 kale oo ka tirsan kooxihii la shaqeynayay xilligii dagaalkii u dhexeeyay Serbia iyo Kosovo. Madaxweynaha Kosovo Hashim Taski ayaa waxaa la soo sheegayaa in maxkamadaasi looga yeeray Hague xilli uu ku sugan yahay dalkiisa, waxa uuna Hashim Taski uu ka baaqsaday socdaal uu ku tagi lahaa dalka Mareykanka. waxaa la soo sheegayaa inay u dhaxayso dacwadaasi kadib markii maxkamadda adduunku ay sheegtay in ilaa sanadkii 2015 ay ku haysay baaritaan kaasoo uu sheegay in dad rayida uu si xaqdarra u laayay oo ka soo jeeda Serbia iyo Romania intii dagaalku u socday sanadkii 1999 ilaa 1998 halkaasoo dagaalo xoogan ay ku dhexmareen dalalka Serbia iyo Kosovo, halkaasoo markii dambana 2008 ay xornimadeeda ka qaadatay dalka Serbia waa Kosovo. guud ahaan warkii caalamka aad ka socoteen abshir show khayrta qiimaha iyo qadarinta naga mudanay wanaaganta.